السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل أيام محمد علي يا عشرديها بحساباتك Open Office عشر كان waxaan ku baran doonaa waxyaabaha asaasiga u ah barnaamijka Open Office gaar ahaan sida wax loogu qoro iyo sida xisaabta la isugu daro ugu horeyn marka u horeysa oo barnaamijka furtid waxaad arkaysaa inay khaanad walba ka kooban tahay ama lagu garanayo xaraf kor kaga qoran iyo tiro dhinac bidix kaga qoran haddaa eegto dhinaca sare waxaa ku qoran A B C D oo socota oo dhanka sare ah iyo tiro dhinaca bidixda ah 1 2 3 oo hoos socota marka god kasta ama khaanad kasta waxaa lagu garanayaa xarafka kor kaga qoran iyo tirada dhinaca bidixda kaga qoran tusaale ahaan godka ugu horeeya waxaa lagu garanayaa A1 oo halka ka soo baxaya dhinaca sare ka soo baxaya fiiro gaar haddii aan sadarkani ku muuqan oo sadarkaas loo yaqaan sadarka lagu qoro qaacidooyinka lagu qoro duusan ku muuqan waxaad calaamadinaysaa view kadibna formula marka waxaan soo sheegnay in god kasta lagu garanayo xaraf iyo tiro haddii la riixo ama la gujiyo bartaan waxaa noqonaysaa B4 haddii la riixo bartaan waxaa noqonaysaa D4 haddii la riixo bartaan waxaa noqonaysaa C9 god kasta marka waxaa lagu garanayaa tirada dhanka bidixda ah iyo xarfaha dhanka kore ah waa muhiim in arrinta la fahmo in godka qaacidadiisa ama xeerkiisa lagu garanayo uu yahay xarafka sare iyo tirada bidixda ah haddaba barnaamijkan waxaa lagu qori karaa sidiisaba caadiyan waxaa lagu qori karaa qoraal caadi ah oo loo yaqaano text xisaab ama tiro iyo qaacido ama formula sidaan arki doonno haddaba si aan u bilowno calaamadii khaanadda ugu horeysa kadibna waxaa ku qortaa qoraal caadiya ku qor tusaale ahaan waxaan ku qoray kharashka maqaaxida markaa qoraalka qortid waxaad riixaysaa batoonka hagaha ee enter baad gujinaysaa ma riixaysaa markaas wuxuu ka aadaya sadar ka hooseeya markaan leeyahay batoonka enter ee taabka waxaan ula jeedaa batoonkan oo sida caadiga dhinaca midigta xiga marka la eego taabka kombiyuutarka batoonkaas waxaa laga yaabaa inay ku qoran tahay enter ama luqad kale oo kugu qoran tahay laakiin waa batoonka enter markaan idhaahdo tab waa batoonka dhinaca bidixda xiga oo ay ku qoran tahay tab hal sadar noo banaysa xisaabta inoo kala fido waxaa ku qortaa marka alaab oo alaabtii lasoo iibiyey makhaayada loo soo iibiyey dhinaca bidixda u dhaqaaq adigoo batoonka falaartiisa dhinaca midigta aadaysa gujinaya ama riixaya waxaa ku qortaa qiime enter alaabta hoosteeda waxaa ku qoraysaa tusaale ahaan moos enter muufo enter macsaro enter caano enter kadibna waxa weeye hal gud banayso waxaa ku qortaa markaa isku dar halkaas waxaan ku qoraynaa isku darka waxyaabihii makhaayada loo soo iibiyey maanta oo kaleeto marka mooska hortiisa calaamadii ama guji waxaa ku qortaa tusaale ahaan 200 oo shilin loo soo iibiyey makhaayada ka soo qaad maantay riix enter muufada waxaa loo soo iibiyey 150 riix enter macsarada waxaa loo soo iibiyey 300 riix enter caanaha waxaa loo soo iibiyey 80 riix enter hal khaanad banayso marka tusaale ahaan waxaan rabnaa marka inaan samayno isku dar oo isku darno waxyaabihii maanta la soo iibiyey oo dhan oo la isku daray waxaan soo sheegnay in lagu qori karo barnaamijkan loo adeegsan karo qoraal caadi ah oo hadda saan qoraal ku qornay ah xisaab ama tiro iyo qaacido ama formula haddaba formulada ama qaacidadu waxay ku bilaabataa equal ama calaamadda la midka ah tusaale ahaan batoonka equal baa ku dhufanaysaa ama gujinaysaa kadibna waxaa qoraysaa
4 b4 maxaa ah b4 waxa ah barta isaga ku kulmaan qiimaha mooska tiradiisu meesha ku qoran tahay b iyo 4 waxaa ku xijinaysaa marka waa bacdama isku darayna waxaa leedahay calaamadii waxaa taabanaysaa markaas isku darka waxaa qori kartaa markaas mar labaad b5 ama b5 ka barteedii riix oo guji automatic bay kugu qormaysaa markaas waxaa qortaa equal plus marka la qor calaamadii pluska waxaa riixdaa b6 calaamadii pluska waxaa riixdaa b7 markaad dhammaysid waxaad gujinaysaa batoonka enter tiradaas uu kaa darsanaysa si automatic ah u fiirso tirada marka la isku soo daro waa inay isku noqotaa 730 qiimahaas faa'iidada barnaamijka waxaa ka mid ah marka ka soo qaad inaan xusuusanay in qiimaha muufadu ay ka qaalisanayd 150 oo ahayd ka soo qaad 325 marka 325 aan qorno enter markaan nahno automatic waxa isbedelaysa qiimihii hoose ka soo qaad macsaradu inay ahayd inta ka raqiisnayd ahayd 215 900 u fiirso oo hoose 950 waa isbedeshaa markaan enter nahno waa isbedeshay 820 bay noqotay marka halka waxaa ka soo arkaysaa barnaamijkan inuu yahay barnaamij aad iyo aad faa'iido badan u leh waqti aad fara badanna ku xafidaya mar haddii aad formulada aad hagaajisid in markaas si sahlan aad isugu daraysid xisaabtii intay rabtaa noqotay waxaa muhiima markaa in indhaha ku haysid dhanka sare ee shaashadda gaar ahaan meesha loogu talagalay qaacidada ama formulada halkaasoo isku darkii aan samaynay tusaale ahaan uu ku qormayo kor ama dhanka sare sida haddaa u fiirsato b4 b5 b6 b7 oo u dhexayso calaamadii isku darka ahayd haddaba habkan hadda soo isticmaalay waxaa jira hab kale oo ka sii sahlan ama ka sii degdeg badan oo la isugu daro xisaabta haddaba tusaale ahaan sadar cusub baan ku darsanaynaa waxaan u bixinaynaa qiime jimci tusaale ahaan waxyaabihii maalinta jimcaha loo soo iibiyey maqaaxida okay qiimihii ka soo qaad marka mooska maalintaasuna waxaa 325 enter muufada 650 macsarada 260 caanaha 9 markaa guji meesha rabto in xisaabta isku darkeedu kaga soo baxo waxaan ku bilaabaynaa markaan calaamadeenii equal ama la mid ah kadibna waxaan qoraynaa sum oo laga soo gaabiyey isku dar sum waxaa furaysaa markaa bil waxaad markaa qoraysaa calaamadda ama khaanadda uu ku bilaabmo oo ah khaanadda uu ku bilaabmo waxa weeye maxay ahayd tiradan waxay ku bilaabataa mooska muxuu ku qoran yahay wuxuu ku qoran yahay c4 wuxuu ku qoran yahay c4 halka waxaa ku qortaa marka c4 waxaa qortay marka c4 ilaa laga gaarayo si aan u qorno marka calaamadda meeshii ilaadaas laga Soomaali ahaan marka ilaa laga gaarayo waxay noqonaysaa laba dhibcood oo isdul saaran ilaa laga gaarayo waxaa laga gaarayaa meesha caanuhu ku qoran yihiin oo ah c7 c oo tan c ah 7 c7 markaa bishii xir enter dheh tiradaas uu kaa tartamaysa automatically markaas marka waa habka sahlankii mar walba xisaabta la qorayay b1 b2 b3 oo la isku darayay kan waxaa qortay macnaha range wax loo yaqaano oo ah xisaabta meesha ka bilaabanayso ilaa meesha ku egtahay oo la isku daray waa sidoo kaleeto hadda ka soo qaad marka in muufada ay ka qaalisnayd intii ahayd 700 u fiirso numberkan waanu isbedelaa markaan riixino enter wuu isbedelay ka soo qaad caana inay qaaliyoobeen oo noqdeen 120 waa in tiradan isbedeshaa markaas markaan riixino eeg wuu isbedelaysaa labada habaan hadda soo baranay waxaa jira hab kale oo ka sii sahlan oo ka sii xawaare badan oo loo isticmaalo marka tiro la isku darayo tusaale ahaan khaanad kale noo samey waxaa ka dhigtaa qiime
khamiis waxyaabihii khamiista loo sameeyey makhaayadda ka soo qaad maalintaasina moosku ahaa 650 enter muufada 650 iyadana iska qiimo ahaayeen mooska iyo muufada macsarada 580 caanahana 5 waxaad tagtaa booska aad rabto inay tiradu ka soo baxdo haddaba u fiirso isku darkii xisaabta si la isugu daro waxaad riixdaa calaamadan dhinaca sare ka muuqata calaamadaas soo ma jeedo waxa ku qoran samti oo isku darkii ahayd calaamadda riix waxay ku isugu kaa daraysa hadda dhinaca biixda marna inay bidix isugu ka darto waxna inaad kor isugu ka darsto marka waxaad gujinaysaa meesha ugu sarreysa oo khamiista qiimaha mooska ilaa laga gaarayo qiimihii caanaha waxaa ku calaamadsan marka D4 ilaa D7 waa D4 ilaa D7 enter automatic bay soo qaadaraysa markaas sidoo kale haddii wax laga bedelo ka soo qaad caano inay qaali noqdeen 250 noqdeen tiradii hoose u fiirso waan isbedeshaa markaan riixino halkaa waxaan ku soo baranay 3 nooc oo xisaabta la isugu daro habka horreeya wuxuu ahaa inaan adeegsanay calaamadii equal kadibna aan qornay tiradii khaanadeedii tusaale ahaan B4 plus B5 plus B6 habka labaad wuxuu ahaa inaan qornay calaamadii equal kadibna sum isla mar ahaantaana aan calaamadinay aan qornay meesha ka bilaabanayso xisaabtu ilaa meesha ku dhammaanayso habka saddexaadna waxaan adeegsanay calaamadda isku darka oo ah sum ahayd calaamadan isku darka ahayd waxaa halkaa kaaga soo baxay in barnaamijkani uu yahay barnaamij aad waqti kugu dhowraya isla mar ahaantaana faa'iido badan u leh adeegsiga xisaabaadka noocyada kala duwan casharkan waxaan kaloo ku baranaynaa hab aad u sahlan oo ah in barnaamijku inoo dhammaystiro markaan xisaab ama tiro bilowno ama qoraal aan bilowno inuu inoo dhammaystiro barnaamijku tusaale ahaan meesha ka qori lahayd 1 enter 2 enter 3 enter 4 enter 5 enter meesha ka qori lahayd waqti kugu qaadan lahayd waxaa ka sahlan inaad qorto tirada ugu horreysa 1 enter kadibna tirada qaanadeeda gujisid marka tirada qaanadeeda riixid waxaad arkaysaa inuu ka soo baxayo sanduuq geeska calaamad ku leh calaamadaas markaa qabatid mooska ama hagaha ku qabatid oo hoos u jiidid tiradeedu automatic loo is qoraysaa eeg ilaa inta rabto qoraysaa hadda waxay ku qortay ilaa 18 bay kugu qortay second kugu qortay meeshay kugu qaadan lahayd waqti dheer kugu qaadan lahayd waa fahamtaa ma halkaas aan ku noqono 1 baan qornay enter baan nidhi 1dii baan riixnay meesheedii calaamadii baan jiidnay hoos u jiidnay tiradii noo soo baxday waxaa kaloo qori kartaa tusaale ahaan January enter battery waxaa rabtaa inaad qorto bilihii kaleeto marka January-dii riix calaamadii qabo hoos u kaxay dhinaca u kaxay bilihii oo dhan baa kuu qormaya marka January February March April kuu qormaya hoosna kuu qormi lahaa haddii rabo in loo qoro hoos noo ku qormi lahayn tusaale waxaa rabtaa inaad qorto bisha oo kooban oo January oo laga soo gaabiyey JAN calaamadii meesheeda guji jiid bilihii soo gaaban baa kuu qormaya way socon lahaayeen macnaa booskaana ka ciriiri maahane ilaa iyo bisha sanadka dhammaadkiisa socon lahaayeen ka soo qaad maalmihiin aan qorto aan ku bilowno Monday enter kadibna meeshii Mondayda guji xagga u kaxay markaas maalmaha dhan baa kuu qormaya maalmaha soo kooban haddaad rabto inaad qorto MON meeshii guji maalmihii soo kooban baa kuu qormaya ka soo qaad marka inaan ka soo qaad mar kale inaan tiradii hadda waxaan qornay tiro 1 2 3 4 tusaale ahaan waa inaga qornay 1 enter tiro caadi oo saas u xigtaan qornay oo 1 2 3 4 ka dhig inaad rabto inaad qortid 1 3 5 7
waxaa samaynaysaa koob baa qoraysaa saddex baa qoraysaa labada tiro ugu horreysa nooca rabto inay noqdaan baa qoraysaa kadibna labadii tiro calaamadinaysaa mouska ama hagaha ku calaamadinaysaa markaasaa jiidaysaa calaamaddii u fiirso waxaa qormayaa saddex halkabood buu noqonaya markaas saddex shan toddoba halkabooda sidoo kale toddoba labo afar oo laga boodo tiradii dhabanka laga boodo labadii isku calaamadii sida kaaga muuqato shaashadda marka qoraallo fara badan la qoro waxay noqonaysaa inay u muuqato isku dhexyaac haddaba waxaa muhiim ah inaan naqaano qaabka loo nidaamin karo shaashadda tusaale ahaan khaanadda ugu horreysa marka la riixo waxaa kor ka muuqanaya qoraalkii ku qorna marka ka soo qaad inaan rabno qoraalka wax ka bedelno midabkiisa bedelno ama aan bedelno farta ku qoran cabirkeeda ama nooceeda nooca marka la bedelayo sidaan hore u soo aragnay bartii qoraalka ku qornaa waa riixaysaa kadibna waxaad taabanaysaa nooca qoraalka tusaale ahaan waxaan dooranaynaa fartanaan dooranayna noocana haddaan rabno inaan weynino cabirkeeda tiradaan dooranaynaa meeshan ku qoran meesha tirada waxaan ka dhignay 18 baa ka dhignay sidoo kale ciwaankii qoraalka saan u bedelo qoraalkoo dhan hal mar ciwaankii ugu bedelno midabkooda ama cabirkooda ugu bedelno kulli hal mar wada calaamadii kan u horreeya mouska ku dhufanaysaa kadibna waa ku jiidaysaa ilaa kan u dambeeya gaarto markaasaa ka bedelaysaa midabkii ama fartii ama noocii tusaale ahaan farta waxaa weye wax yar baan weynaysiinaynaa 14 nooceeda waxaan ka dhignaa tana u dooranaynaa farta noocana haddaan rabno inaan midabka ka bedelno tusaale ahaan waxaan gujinaynaa batoonka hadda shaashada kama muuqdo isagoo xagga usoo jiida xoogaa batoonkana riixaysaa inaad derbiga qoraalka aad ka bedeshid midabkiisa haddaad rabto qoraalka naftirkiisa inaad bedeshid midabkiisana waxaad riixaysaa font color ama background color backgroundna waa derbiga fontna waa qoraalka naftirkiisa marka qoraalka aan bedelno waxaan dooranaynaa midabka tusaalaan bluega iska xir markaas derbigana aan bedelno waxaan dooranaynaa midabka greyga iska xir markaas markaan farta weynaysinay waxaa arkaysaa in khaanadihii qaybtooda ay farti ka weynaatay haddaba marka la rabo in booska loo weyneeyo dhinaca sare ee kolomka ayaa jiidaysaa dhinaca midigta u jiidaysaa u fiirso marka lagu dhoweeyo wuxuu noqonayaa calaamad labada falaaroo dhinaca midigii bidix u soconaya marka ilaa boos ka laga hesho ayaad gaarsiinaysaa khamiisna sidoo kaleeto haddii aad garwaaqsatay in tiradani aan u samaynay nambarka tirada aan u samaynan uu ka wen yahay ciwaanada waa yarayn karnaa sidoo kaleeto calaamadii kadibna tiradii soo yareeya waxaa ka dhigtaa tusaale ahaan 11 markaa khaanadihiisa u yaraysid sidaan hore usoo baranay dhinaca kolomka kor ka taabsii mouska ama hagaha kadibna bidix u jiid ilaa aad aragtid meel u leekaado khaanada leekaado sidoo kale maalinta kaleto sidoo kale waxaan weynaysiin karnaa sadarrada sidaan u weynaysinay laynka kor u socda kan jiifana waa weynaysiin karnaa ama waa ballaarin karnaa tusaale ahaan haddaan rabno inaan weynaysiino sadarka uu ku qoran yahay isku darka waxaan u dhoweynaynaa mouska ama hagaha waxaan u dhoweynaynaa tirada meesha ka kala qaybsanto kadibna waxaan u riixaynaa hoos baan u jiidanaa markaas si u weynaato godkiisu darka marka uu ku weynaaday tusaale ahaan calaamadii kadibna midabka ka bedel midabka qoraalka korkiisa markaan bedelayno waxaan nidhi waa font color marka waxaa ku dhufanaysaa font color waxaa ka dhigtaa inaa ka dhigtay midabkaas
دربي قرال كان بدلنا أنا وحلينا background color midabka ka dhig haddaan rabo inaan bold ka dhigno ama midabkooda ku xoojinno kadibna calaamadii bold ayaanu ku dhufanaysaa marka sadarkii isku darka wuxuu ku noqday xisaab ka muuqata xisaabaha kaleeto kaaga muuqda si aragtooda u sahlanaato ka soo qaad inaan rabno inaan masaxno tiro ka mid a tirooyin ku qoran shaashada ku qoran inaan masaxno ka soo qaad tirada 2 oo kaleeto bartii ay rabto inaad masaxda gujinaysaa kadibna waxaad riixaysaa batoonka delete ee taabka waxaa marka ku furmaya shaashad ay ku qoran tahay waxyaabaha la masaxayo waxaa la masixi karaa qoraalkii tirada ama formulada ama dhammaantood hataa rabto inaad dhammaan masaxno waxaad ku dhufanaysaa batoonka dhammaan markaasaa leedahay okay wixii ku qornaa marka godkaas masaxmaya waxaa kale oo laga masixi karaa edit kadibna waxaa leedahay delete ama delete cell ama delete content haddaad cellka masaxaysid khaanadda naftigeeda masaxaysid waxaa leedahay delete cell haddaa wixii ku qoran masaxaysid waxaa leedahay delete content shaashadii baa markaa kuusoo baxaysa mar kale kadibna waxaa leedahay delete waxaan rabnaa oo kaleeto tusaale ahaan in aan qoraalkan sareeto aan la sinno dhexda ku beegan xisaabtan aan samaynay marka si taa aan u samayno khaanadda oo dhan calaamadii inta khaanadood aad rabto inay isku dartid calaamadii kadibna waxaa gujisaa batoonkan dhanka sare ee ku muuqato oo la yidhahdo merge cells waxaa isku daraysaa dhowr khaanadood baa isku daraysaa markaa kadib waxaad dhigi kartaa markaas align center dhexda keenaysaa markaas soo xisaabtii marka qoraalku marka wuxuu ku yimi dhexda ku yimi midabka daarta inaad ka bedeshid hal mar baa kili garanaysaa ama riixaysaa kadibna midabka baad aadaysaa meesha midab ku qornaa derbiga ka soo qaadana derbiga bedelayno aan ka dhigno midabkaas halkan waxaan ku soo barnay qaabka loo nidaamiyo isla mar ahaantaana qoraalka xisaabta ama formula loogu qoro barnaamijka open office intaan ku kulmi doono cashar kale insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu